السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صاحبة الصوماليات ملك سؤال جوبتان يسكتوا عن طاولة سر حلو ونكسر موضوعني لما أنتي وحكوا سابسين يهي مجال المقوكري قبل كهيران يبعطوا ما أنت كان عليه ويهي مجال المقوكري قبل كهيران ما أنت أرورتي وحا وير أرجع حسنا ما كسو قاضي كوحها خواريجتا الشباب القاعدة وير هذا أرجع حسنا وحكوا باللوضين بابور qarax laga soo buuxiyay oo magaalada orod ku soo galay iyadoo ay arkeen baaburkaas ciidamadii macawisleyda ee beesha xawaale iskuna dayeen baaburkan isor taagan hase yeeshee maadaama baaburku ahay bulletproof ama kuwa aan xabadu karin waxa weeye askartu way joojin weysay ugu dambayna gudaha ayuu soo galay sida xogtana la ku siiyay qaraxaas markuu dhacay ka bacdi مليشيات في الجيسياشة إبيش حوالة من يجبن وحين اسكت ضيين مجال إن الدفاع ده دجال أرق بيلقى خوارجتنا سيدا عادة وهيد قرح مركول عي ويرخلق هيا كحبي ومليشيات ديار سنة أي حبة صوب بالله دجال كاسي وحو سعودي وجيران صدح ساعات أو استبجوبته أما اسكحبته وقدام بيننا مع وسليدي بيش حوالة magaaladii way ka baxeen waxayna gacanta u gashay kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab al-qaacida marka hore aad baan uga xunnahay magaaladaas Moqokuri ee gacanta khawaarijta ku biirtay waxaan soo cambaaraynaynaa kooxda Xasan Sheekh Maxamuud oo in muddo ah ummadda been u sheegaysay waayaha kan waxaad arkayseen kooxo dawladdu lacag siiso oo qaaqlayaal ah oo baraha bulshada يعني كوفا فيني ورا شيء يا آذن يبالبا لقول نقول ربا آذن يبالبا حال الدقيق آذن يبالبا عيدا صحن هو قلي آذن يبالبا وحوي وحصل هوها يا بامبي هاي دولة دان حسن شيخ محمود أنو أنت عن كبرني أما أنو كأرجني ولي جيت مجال لك قبصدي دب وكمي لعبا بيش عوالة وحوي وحاهلي لما عدو لما عدو وكلا حسن شيخ محمود oo yartiyaal yihiin laakiin cadaawad weyn u qaba sida ka muuqata afcaashiisa ama ficiladiisa iyo kooxo khawaarij ah oo iyaguna ciil weyn u qaba kooxda khawaarijtu beesha xawaale ciilka gaarka ay u qabaan waxa weeye hadda xawaale dad muxuu ahaaytay hebad ahaa oo argagixisada u dhaga nuglaa ayay ilbixiyeen beelo badan baa hubka qaatay oo isku dayay inay sida xawaale argagixisada ula diriraan حوالة وبيشة صومالي برتاي إن أرجحسده لا دري كره حبضو كرتو أي لمرايان تذكر أي لميديشين إن كستو بيريه كله كود يصدي بيشة حوالة أنت بدل أي كبحان حضر حوالة وحوي أرجحسده عيل كاس أي وقبطة أو أنت كبر حوالة نور شحي إن نبض كنورانا يعني 100 سنة taas marka waxay keenaysaa in argagixisada si gaar ah beesha soo baagsato dhanka kale nimanka dawladda hogaamiya Xasan Sheekh Maxamuud kooxdiisa iyo ragga ugu jira dawladda beesha xawaale uga tirsan macnaha waxa weeye arrinkan iskama xil saarin laguma dadaalin in beesha xawaale garab la siiyo Xasan Sheekh Maxamuud oo umadu ogtahay inuu yahay nin qalbigiisa iyo afkiisu iskhilaafsan yihiin waxyaabaha uu sameeyay khiyaamada waxa kamid ah magaalada Moqokuri uu tagay booqasho ku tagay hal maalin buu joogay dadku u been sheegay isagoo meesha ku sugan oo le ciidamo kale idin keenaya halkan laga galaya aaday baa waxa lagu yiri nin wasiiru dawla ah oo ka yimid imaaraadka ayaa xalar ku sugan madaxweyne boorsano uu ku sidaa durmadii baa ka soo caray oo diyaar soo raacay ما أول وقع إنك عصو إيمانيو أو بيش حوالو ربي إنه أبين جورو أو أنتو لغاية تنصع ويران للجوجو واحد سفر وباحة يسكن يقول ساعة وما سفر كأكيد يسكن نقضي أنا وقرر معي وعاوي ضد كأوش مجدو الطوري بيش حوالي أيو حسن وجوه الرياء ولبا يجو أبتيال حوالي لدقالك الجحسدة واللوجو هك رضي تاسنا إن بدن بين الشكلين ميديها قال يو مقالبة بيش حوالي وان كلها اللي
waxaan idhi wadnayo geesiyaal baa tihiin waadna isku daydeen inaad argagixisada iska celisaan laakiin waxa weeye nimankani waa niman Soomaali ka kooban ajaanibina ay dheeri u tahay ee geesinimada caqli ku dara haddaydan garab helin ama garab dawladeed ama garab beelaha Soomaalida kale waxaan idhi nimanyahow dagaalkan siima wadi kartaan dad badan ugu culaadiyay oo yiri argagixisada ayaa la jirta oo rabtaa inay wax noqoto wadigay ma taagin argagixisada waa la yaqaanaa dhowr iyo 10 sano ayaan midiyaha active ka ahay hal community hatta oo aan muxuu ahayti iyaga ugu hiileena ma jirto laakiin waxa way xaqiiqo ku nool baan ahay been nafteeda kuma seexiyo xaasidna ma iyo ummadda Soomaaliyeed waxa way qolo kasto ay tahay qoladii aan isiraab maanta waxba ka khaldan waan baraarujiyaa marka beesha xawaale waxa weeye waa inay danaheeda dib uga fikirtaa waa in siyaasiyiinteeda iyo aqoonyahankeeda iyo ganacsatadooda iswareystaan ayna ku fikiraan tolka in loo tawaaniyo xoolaha loo tawaaniyo xoolaha meesha shilinta leh meesha qaniinka leh meesha garangoorida leh baha xoolaha cunoo yaryar kuwa waaweyn ma aha meesha leh xoolaha laguma fulo dadkuna uu ka sii xaq jirsan yahay ama ka sii muhiimsan yahay waxa weeye marka dadka waa loo tawaaniyaa war xawaadlow intaad fariisato ood iswarsato geesinimada caqli ku dar aniga warkaygu ma argixisi isu dhiiba aniga warkaygu ma aha isjilciya laakiin waa inaad caqli ku dartaan dagaalka aad ku jirtaan dagaal bila caqli ah dagaal aan muxuu ahaytay hiigsi iyo meel loo socdo aan la garanayn dagaal aan cidina garab kugu siinayn dagaal dariskaagu kaaga baxay dagaal adan u kaashanayn dawlad dagaal adan u kaashanayn beel waxa way iska wadi kartaan marka waxa weeye caqli ku dara geesinimada insha Allah ta'ala markale waxaan idin soo jeedinayaa intaas inaad caqli ku dartaan geesinimada oo aan la idinka dhigin kurtun dhaba ka baxay waxa la yiraahdaa ciiduba hadii la guro way dhamaataa meel bacda oo weyn oo ciidu aad u degtay bal gur mar dhow go'aan bay noqonaysaa dadku waxa weeye saas oo kale u dhamaanaya xabaduna waxa weeye waxba bahanbayso wariyo caqli la imaada xawaalo caqli la imaada garab ma haysataan ragga caalkeedu kugu jira waa garab caws oo rag wadaan ka soo saari kara maaha waxa weeye marka waa inaad geesinimada caqli ku dartaan intii maanta idinka shahiidana insha Allah ta'ala jannada u rajaynayna intii ni noolna waxaan rajaynaa insha Allah ta'ala inay barwaaqo iyo nabad ku noolaan doonaan kooxaha argagixisada ugu dambeyn waxaan leeyahay moqokori hadaad qabsateen taas macnaheedu ma aha inaad guud ahaan dalkii Soomaaliya la wareegteen insha Allah ta'ala dawlad qiimo leh daacad ah argagixisadana toos ula dirsan baa noo imaan doonta waana iska kiil xorayn doonaa waan iska kiin dul qaadi doonaa adinka iyo ajaanibta aad wadataanba geeri iyo xanuun iyo murugana adinka ku dambayn doona barnaamijka aad ku sii dheereeyay marba intaas aan ku soo koobayaa hada wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.